عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said, the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, do not envy one another, and do not inflate prices for one another, and do not hate one another, and do not turn away from one another, and do not undercut one another in trade, but, rather, be slaves of Allah and brothers, amongst yourselves. A Muslim is the brother of a Muslim. He does not oppress him, nor does he fail him, nor does he lie to him, nor does he hold him in contempt. Taqwa, piety, is right here, and he pointed to his chest 3 times. It is evil enough for a man to hold his brother Muslim in contempt. The whole of a Muslim is inviolable for another Muslim, his blood, his property, and his honor. Narrated by Muslim. waxaa laga wariyey Abu Hurayra, eebbe ha ka raali noqdee, inuu yidhi, rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, ha isxaasidina hana isu tanaajushina, macnuhu ammaanina badeecad si aad u iibisiin oo u dalacsiisiin ama u kordhisiin qiimihiisa inkasta oo aanu doonayn in aad iibsatiin, laakiin ganacsatada aad rabtiin in aad anfacdiin mise ku xumaysiin. hana isnicina hana kala jeedsanina, qaarkiina yuusan ku kor iibinin iibka qaarkiina kale, ee wada ahaada addoommo eebbe iyo walaalayaal. qofka muslimka ah wuxuu walaal la yahay muslimka kale. ma dulmiyo, kamana tago taageeradiisa iyo gargaarkiisa, been uma sheego, mana yaryaraysto. taqwada waa halkan 3 jeer ayuu laabta u tilmaamay. nin walaalkii muslimka ahaa uu xaqiro waxaa xumaan ugu filan. muslim kasta muslimka kale waa ka xaaraan, dhiiggiisa, maalkiisa iyo sharaftiisa. waxaa wariyey Muslim.